waxa aflatig saac la soo dhaafay baraha bulshada haystay aan ka aamus kari weynahana ataanahay tiim xog bixinta wararka aan runtii aanu hawlgalnay sidii aanu ula xiriiri lahayn oo runtii arrinkan aanu hubilen sidoo kale waxaan u hawlgalnay inaan la xiriirno abwaanka laakiinse wayna suurtagal oo runtii bartiisa Facebook ayaabu ku shaaciyay haddaba arrinkan oo noqday runtii mid aad looga fadhiisan kari waayay maadaama Yurubgeeyo runtii tahay qof Soomaalida dhexdeeda ku leh sharaf iyo maamuus runtiina ay ka mid tahay hablaha fanaaniinta aan ugu jecel runtii haddaan hay anigu khaasantanba sidoo kale Yurubgeeyo waxay soo bilowday fankeeda 2016 ilaa waqti xadirkan joognay 2020 sii dhamaanaya fankeeda kor ayuu buusi kacay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga bariyaa in Ilaahay dambigeeda ka dhaafo kii hore ka dhaafo ka dambe geli doonta Ilaahay ka dhaafo caafimaadka ina degdeg u siiyo oo runtii xanuunka hayo inuu ka dulqaado in sidoo kale Yurubgeeyo oo runtii ku xanuunsanaysa gargaar hospital ee kamid ah dhakhaatiirta Hargeysa ugu waaweyn isla waqti xadiridii waxa ugu dambeeyay ka soo baxay in xaalkeedu aad u xun yahay oo runtii laga dayrinayo laakiin si Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga barinaa in Ilaahay shaafiyo inkoo saaxiibayaal dad yowga muuqaalkayn hadda daawanayaan si codsiga dhammaan uga diriya inay muuqaalkan ugu soo duceeyeen Yurubgeeyo oo runtii ah fanaaniinta Soomaaliyeed muuqaalkan aad sii share gareysaan sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena haddaad ku cusubtay channelkana subscribe saar same gaarno saacadaha soo socda boqolkii oo subscribe waad ku mahadsantahay sax markaste sida noola joogtaan muuqaaladan aad u daawanaysaa u share gareynaysid Yurub Maxamed Cabdi waxay ka mid tahay hablaha fanaaniinta ee ka tirsan xidigaha geeska runtii waxa la oran karaa waa hooyo Soomaaliyeed haddana ku jirta fankii Soomaaliyeed runtiina waxay ka qayb qaadatay heesaheeda sidoo kale waxay ka qayb qaadatay heesaha lagu amaanka Somaliland iyo heeso badan oo runtii oo Somaliland lagu amaanayo heeso badan oo kale runtii aad u qiimo badan haddaba sidoo kale Yurubgeeyo waxay ka mid tahay hablaha ugu firfircoon ee runtii ku jira fanka isla waqti xadirkan ugu dambeeyay aanu runtii markaas ka hadlay waxa ku jirta Yurubgeeyo hablaha aan ugu jecelay kuwa fankooda aan dhageysto markaste sidoo kale waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa in uu ka qaado xanuunka oo caafimaad uga bedelo xaalkeeda saxna uu ka dhigo oo runtii uu noqdo mid aad iyo aad looga faxro sidoo kale dhammaan asxaabta ku xiran channelka xog bixinta wararka waxaan codsi dheer in la xasuusinay saaxiibayaal in aad halkan commentiga ugu duceysaan like-na saartaan muuqaalkeena si uu sii gaaro dad badan oo runtii ducadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu aqbalo saaxiibayaal wixii muuqaala ee ka soo baxa waan halkan channelkeena ku baahin doonaa insha Allah muuqaalkan iga raali noqdo saaxiibayaal haddaan degdegay si degdeg ayaan soo sameeyay oo runtii waxaan ka aamus kari waayay xaalka Yurubgeeyo aad iyo aad baa mahadsantahay.